beel ka mid ah beelihii dhawaan dirutu ku dhaxmartay deegaanada Dararweyne iyo Duguble ayaa maanta warbixinay saxaafadda siiyeen kaga hadlay hadal ay qaar ka mid ah wasiiradii xukuumaddu u soo xil saartay heshiisiinta labadaas beelood ka sheegeen warbaahinta hadalkaas oo ahaa in nabad sugan laga xidhay wajigii koowaad degmada Ceelafeen iyo nawaaxigeeda taas oo ay ku tilmaameen odayaashan mid been abuur ah wax ka jiraana aanay jirin nabad Ceelafeen laga xidhana aanay jirin waa sida hadalka u dhigeen sidoo kale waxay baaq u direen xukuumadda uu madaxweynaha ka yahay Axmed Maxamed Maxamuud Siinaayo iyo cid kastoo daneynaysa in nabad laga xidho deegaanadaas inay faragelin ku sameeyaan arintan si nabad buuxda looga gaaro deegaanadaasi iyagoo amuraas ka hadlayna wax hadaladoodii kamid ah waxaanu nahay anagu uqaashi iyo waayeelkii degmada Ceelafeen gaar ahaan beesha Bohood ayaanu nahay oo aanu cadeynayna inaan dhacdadii ka dhacday degmada Ceelafeen Duguble iyo maxay tahay goobaha lamida dhimasho iyo dhaawacba yeelatay ay wasiiradu iyo cid la midiba ay tiri nabadgelyaanu ka xidhnay beelahaas gamcahaanu isu saarnay waanu heshiisiinay waanu wada tujinay inaanay waxba ka jirin ayaanu cadaynaynaa xalay halkan waxaan maqmaqlayay TV oo ka hadlayaan wasiirro ay ka mid yihiin cadaan iyo cadam iyo way leeyihiin waxaanu heshiisiinay beelo wasiirada xalay halka kala ha cid baanu heshiisiinay arrimaanu soo dhameynay inay iyagu la fahmada amni ahaan ugu soo tukadeen Ceelgaabo oo Ceelafeen markii ay amni ahaan ugu soo waayay ay horta u qabteen annaga waxaanu markii wada dawladdu waxay soo tisaalay wasiirro waanu sugaynay saanule waxbaanu qabanay xalay muraadahaanu ka arkaynay iyagoo waxbaanu gacanta isu saaro isu keenay marka waxaanu u sheegnay jamhuuriyadda Soomaaliland beelaha dadka nabadda jecel ee u diyaarka ah in wax laga qabto inay nimankaasu wax alla waxay ka qabteen jirin hadalka ay sheegeen uu yahay hadal beer aha labada wasiir halka qabtay ee Ceelgaabo ka hadlay kuwii halkan ma hadlin waayo daatada dadka socdaan wax waan oo yaali ma jiro xal wali lama gaarin ninka doolaalayaa sidoo xabad joojin sameeyay dadkuna in qof waliba aagiisi ku eegay ninka Ceelgaabo ka sheegay yiraan waxbaan soo heshiisano gacan baan soo saaray waxaan leeyahay taa inuu ka fiirsadaa weeye dawladana in wax loo waxaan lahayn loo sheego maaha waxaan u cadaynaynaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo xukuumadda arintaas wax dhacday maaha arintii sidii bay u taagan tahay Axmed Mursal Askar TV caalamiga Universal Ceelafeen